السلام عليكم رمضان كريم مدن مدحوين وك سلامايا waxay ii tahay fursad ay tahay ii dhiirigelin aniga waxaan joogaa qaybta emergency-ga bukaanada habeen iyo maalin ay imaadaan 24 hours dhaqaatiirta way shaqeeyaan ka horna waxa kamid ahaa teamka Istal Martini ka shaqeynaya markii arintan covid dhacdana waxaan kamid noqday covid response team maxaa lahaa isbitaalada ambalaasyada aan u dirnaa way nala soo xiriiraan bukaanada ay noo keenaan as emergency ahaan aan u qaabilnaa meesha ku monitor gareynaa qaarkii u baahan ICU u gudbinaa qaarkii kale tan waxa u gudbinaa inpatient Ramadan Kareem mudana madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta oo aad inoo sameynaysid xilligan adag magacaygu waa Dr. Axmed Maxamed Bashiir waxaana joogaa qaybta oo inpatient-ka ama bukaanada jiifa oo qaybtan guud ahaan waxaa jirta maanta oo aan kula hadlayo 24 bukaan 17 ka mid ah waxa ay leeyihiin comorbidity wax loo yaqaan ama xanuuno kale ay la joogaan oo micnaheedu yahay boqolkiiba 70 bukaanada jiifa waxay qabaan cudurro kale ama ha ahaadaan cudurrada samabada hore ugu dhaca sida neefta kale ama cudurrada dhiig karka ama sokorta waxaana ilaahay mahadiisa in maanta isbitaalka Martini oo ay dawladdu gacanta ku hayso oo intaas oo bukaan ah siinayo dawooyin free ah iyo care free ah iyo oxygen ay u baahan yihiin ICU-da haddaan wax yar ka taabto mashiino nagu filan waa haysanaa haddeer capacity iyadoo loo fiirinayo ICU-da capacity-geeda iyo mashiinada waxaa noo jooga nin biomedical engineering ah oo maalmahan dhan ka shaqeynaya arrintaas waxaa kaloo joogo dhaqaatiirtii anesthesia-da ee isbitaalka Digfaar ka shaqeynaysay dhammaantood markaa waxaa waaye haday habeen waxay u heelan yihiin inay markaa ICU-da bukaanada baahidoodana inay haqabtiraan sida saxda ah ee markaa ICU-da u shaqeysan in mar walba la ilaaliyo waxaa kaloo jira nurses meesha ka shaqeeya oo bukaanada maadaama ay yihiin bukaano aanan socon karin oo har iyo habeen baahiyaha gaarka ah ee qofka uu leeyahay mar walba u taagan inay xaliyaan ICU-da hadda waxaan dhihi karnaa si fiican ayay u shaqeynaysaa bismillaahi raxmaani raxiim mar kale waa in salaami kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira waa idin mahad celinayaa runtii sida halyeynimada leh daacadnimada ay ku jirto aada ugu soo jeedaan habeen iyo maalin sidii aada dadkiina u taakulayn lahaydeen aqoontiina aada uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah in aan la dagaalno oo aan hakinno dhibkiisa aan hakinno weliba dee dhibka aan ku jirno dhinac walbaba iyo xaaladda uu nala soo beegtay oo diyaar garow la-aanta ah maxaa yeelay wadamadii waaweynaa ilaah baa awoodda lahaa dhaqaale ahaan iyo dhinac walbaba iyo aqoonba yaa la tacaalila marka inaad idinku u bareertaan oo u soo jeedaan oo reerkiina iyo qoysaskiina iyo bulshadiiba aad ka go-doontaan si aad sacrifice ugu samaysaan shacabkiina iyo dadkiina bukaanka ah ee Soomaaliyeed oo tawaalaysan horta ilaahay ajar idinka siiyo runtiina waxaa haysaan wax u dhigma ciidamada habeenkii dhufeysada ku jira oo cadowga runtii horarka ah oo ummadda Soomaaliyeed muddada dheer dhibka ku hayay hor fadhiya oo kaneecada iyo roobka iyo qoraxda oo hor fadhiya oo si ay ummadooda u difaacaan cadowgaas ay uga difaacaan marka idinkuna runtii frontline-kaad ku jirtaan inuusan cudurkan ummadeena uusan halakeenin ciddii idiin timaada oo cisbitaalka timaada aada siisaan kaalmadii iyo wixii aad u qaban kartaan oo daawo ah iyo tusaale iyo talaba runtii aada iyo aad yaan idinkaga mahad celinayaa waa ku ammaanan tihiin waa idinkugu hambalyeynayaa maxaa yeelay riskigeeda leeda saad sheegteen waa cudur aan la garanaynin inaad u babac dhigtaan oo aada idinku noqotaan aada noqotaan frontline-kii aad ku jirtaan runtii aada iyo aad baad waxaad u qaadateen riski iyo sacrifice marka annagoo dhan waxaa noo tihiin haliyeeyo
inta qof aad badbaadiseen iyo inta qof oo idin imaanaysa oo badbaadada ka rabta ilaahay wax badbaadiya oo gacantiina soo gelaysa si ay u helaan kaalmo ay u helaan ama caafimaad ay u helaan runtii kalsoonidaasi waa kalsooni aad iyo aad u ballaaran u weyn anigana waxaan iri dee dadka intaasi ku jira oo sida cabdirasaaq sheegay bannaanka aan usoo bixin oo karantiilka ah iyaga naftooda ku jira iyagoona xanuunsanayn oo reerahooda aan arkaynin inaan la qaybsado oo aan u hambalyeeyo yaan runtii waxaan ku qaatay maanta inaan idinla wadaago aan idinla qaybsado runtii waa ku mahadsantihiin wax gaara ummaddiina u qabateen abaalna waa idinkaga haynaa kulli ummadda soomaaliyed abaalna waa idinkaga haysaa annagana abaal waa idinkaga haynaa waxa qormaya waa taariikh xanuunkan iyo dhibkaanna waa la dhaafi waa laga gudbi waqti ahaataba waa laga gudbaya marka inta qof oo kasoo qayb qaadata oo naftooda u hurta oo waqtigooda u hura runtii waa ka duwanaanayaan dadka kale maxaa yeelay waxaad ku jirtaan badbaadada dadkiina aad ku jirtaan shaqadaa haysaanna waa shaqo cibaado ah ummaddiinana shacabkiinana waa u haysaan iyo dalkiina waa mahadsantihiin maalin wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu